عو waxay joogtaa mi waxaana dhashay eedaday maxay nagu qaadan kartaa hadii aan isleeyahay oo taga ma fahmin waxaan qaaday lacag $10,000 waxaan ka iibsanay jacaylkeeda waa fursad fiican ma istaafkaygi waxaad diyaarisa gaari sidoo kale wax bankiga ugu saartay lacag $10,000 isla hadda عو way ku dhamaatay ساكين انت قهرمن افك كمدهاي جعيل وكتير وادو بقات كجيتي غاخكي على غبي وادو ودبان كتغمي ومسي إيكم كم واسد ساكين انت قهرمن الله وابا تنبا عو الله ينابتي استريح سوق halkaasad ku salaaman tahay inaadti hawl yar ayaan ku hayaa waxaan rabaa inaad hawsha ka faa'iideysato hadii aad aqli leedahay idii borsada adiga Soomaha talkiya hawadaha qalbigo adiga Soomaha shayga idilkeeda macaan adiga Soomaha nagayna naamir jeceshay laakiin samarka qaar qofka jeceshay in si daayo weeye in waa bilow cusub aad kaga bilaaban karto noloshaada meel kale inaad tacawo mustaqbalkaaga ka fikir inaan baa tahay miiguna ma aha nolol rasmi ah ee waa nolol rafaada argeysina way ka qurux badan tahay nolosha miiga daayaha idogsiga jacaylkaygu iib maaha dollar baa jeedaya hadii adduunka oo dhan isaga la garab dhigo isaga dooranaya kaas la igu yeedho hayo maru aqoone adiga baray ashaq dagisa ilaha wadnaha beerka kaaloriya yadaydan adiga ku taqaana gabadha awal dhaho ha wana qaana maxay qabataa gabadhaasi wali ma loo soo geed fadhiistay ama ma jira wali qof isku day inuu soo geed fadhiisto maya ma jira laakiin waxa jira wiil ilmaadeeriyiin oo laha maandhow soo geed fadhiisanaya sababtoo ah waxa isticlaadeen in ilmaadeeriyiin ama qaraabo yihiin ninkaas magaalada Hargeysa ka yimaadeen marka wuxuu diidanay ninkaas isticlaadaan ninkaasna saaxiib baan nahay oo wuxuu igu yiri waan soo geed fadhiisanaya awan ninka ma jeceshahay marka maya laakiin waxa uu ixtiraamtaa qaraabo ahaan ninka magacii rays hayo wad mahadsan tahay ii baashaal waxaan lacag tolmaaniga iskale ama dadka dhacaya qoshi qarsaadigu maxaa ka galay hayo markastan ku baahnana waa inaan ku heli karnaa afka kama dhahay jacayl wurkatiro wadabo ayaan qorshe kasta iyo wax kasta lahayn way naga burbureen inaad sidii caawana ma teliso mar haday sida tahay wax kasta iyo qorshe kasta lahayn dix ku qaadan weyday marka waa in laga dhigaa mar dambe in dib u istaagi weydo maxaad ula jeedaa ayaan micnaha marka waa in offline laga dhigaa hadii caawa ka baxdo meesha naamir muruga ayuu dareemi doonaa waxaan u rabi doonaa qof u bedela booskii caawa ay ka baxday aniguna inta waan uga soo dhawaan karaa fursadan uu ka faa'iideysan karaa in abtida istiraaxi gabadhan kale maxay ka wadaan waxa soo lacag inay soo bandhigaan ma kaliya aad waxay ku tahay inay iga reebaan naamir aniga igama reebi karaa naamir wax kasta sameeyaan tani waa waali jacaylku marka qaar waali ayuu noqdaa ayaan sug anigu riskiga kulama qaadan karo kulamana gali karo ee waa kugu kaliga istareex xasuusno marka koobaad inaad tahay saaxiibadayda ilaa yaraantii marka labaadna xasuusno inaan kugu leeyahay lacag aad iyo aad fara badan oo aanad iska bixin karin qorshaha hadaad ii dhamayso waxaan ku ballan qaadi doonaa inaan ka qaadi doono wax lacag taan kugu leeyahay adiga ayaa iskale sidoo kalena laba jibaarkeed aan ku siin doonaa marka waxaan filayaa qorshahaaga inaanad ka soo horjeesan marka qorshuhu muxuu noqon doonaa waxaanaynu u baahannahay qof garab inagu siiya arrintan daayaha idogsiga rayska ha waan xasuustaa waa ninkii naloo sheegayay iyada jeclaa ha waa nin jecel cawo oo welibana dhaawacan nin dhaawacan uu sahlayay sidoo ku aqbalo wax kastaba haye sidaynu u heli karnaa rayska oo halkaynu ka heli karnaa qorshaha mar hore ayaan ka sii fikiray aabi mobilkayga bayni waxyahan bata adkooga liitaa